ku adeego cadowka ilaasho ayaha ka taliya axadku malaya aqli qalbo inaan ku adeego cadowka ilaasho ayaha ka taliya axadku malaya aqli qalbo بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ما بعد أنا وحنا هاي محمد سلطان سليمان علي دقن دلك سويدن كان مد حبناها قولها الدهاء ما بالقولات كأوضل ستين وحنا دونيا إن نعاو هل كان شرك رائد كجهد الله أرن كسوكر لي دقان ذا أوضل ستين وحنا يهي إن دوالبه صحافة الدنيا ده برشة كل دقن ديجانا ده أوضل ستيت إني أدلوجه هذلي أرن كصابسن بالبلارسي أي إسكوبة هايستين دولة جيبوتي يوم من قبلات كأسنامي هرجيسة haddaba iyadoo sidaasi jirto baryahanba waxaan doonayaa inaan laba arrimood ka hadlo ta koowaad waxay tahay dawladda Djibouti oo run ahaantii iyada hanu u qabnay markii hore inay tahay dawlad taqaana shuruucda xuduudeed nidaam ee u degsan adduunyada inaan lagu xadgudbi karin inay ogsoontaan u qabnay waxa cadaatay dawladda Djibouti iyadoo una qabiil ka maqnayn ku dhaqankiisu inay caadeysato inay ka soo xadgudubto carrada Awdal State soona farageliso xuduudihiisa iyadoo aan cidnaba kala tashan ay khusayso arrintani dadka deegaanka wala maamulkeedaba SNM waxay tahay iyadoo SNM dagaal bay nagu la jirtaa waynu ogsoonahay nidaamka ay u shaqeyso inuu yahay ku beeleed inuu yahay ku tacaddi ay had iyo goor ugu geystaan dadkii reer Awdal State waynu ogsoonahay inay dhulbalaarsi ku jiraan maanta garab bay u heleen iyagoo garabsanaya dawladda Djibouti ayay maalinta arrintaas si cad ugu soo tafaxayteen haddaba annagoo maamul goboleedka Awdal State waxaanu idin sheegaynaa dawladda Djibouti ee sharciyada adduunyada u yaallay ama nidaam ay taqaan iska indhatirtay iyo maamulka SNM Hargeysa inaanu iska kiin celinayno taaka dhulka iyaga kamidana aan lagu soo xadgudbi karin inta mid qof reer Awdal State oo adduunyada korkeeda ku nool yahay dadka reer Awdal State iyaga mid baan leeyahay walaalayaal maanta waxa aynu joognaa maalintii magaceena iyo sharafteenuba hay inoo baahnayd inaynu u helino waxaynu ugu heelin karnaa innaga oo gacmaha isqabsana mid kaliya u noqona cadowga dhulkeena ku soo xadgudubay ee sida sharci darrada iskaga soo galaya ee khayraadkeeni dhulkeeni dihina aynu ubadkeena aayo uga dhigi lahayn maanta inay fadhaan doonaya walaalayaal waa inaynu u midowno waa inaynu meel uga soo wada jeesano waa inaynu af iyo adinba wax kaga qabano anigoo inagu kalsoon anad ilaashan doontaan sharaftiina ogsoon walaalayaal waxaynu isku ognahay inaynu af iyo adinba maanta ku celina cadowga deegaanadeena ku soo gudbay waanad salaamantiin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
haddii ayan samaynunin awood mare naftaydu marka aan urka hooyaday iska uga soo baxay anigoon anfaca baran dacawdiisa ugu gale kii igu anqariyo arligaygo iska uga soo baxay anigoon anfaca baran dacawdiisa ugu gale kii igu anqariyo arligaygo أبيغو عدوك إلى شو آياك تليا أحدثوه ملايا عملي غيبو عيناكو أبيغو عدوك إلى شو آياك تليا أحدثوه ملايا عملي غيبو فكرتك أبالغ عدوك دلت رسول فكرتك أبالغ عدوك دلت رسول عادين عني صوبونا فيها قوم بحي صوبونا عبالنا كل بحي صوبونا عادين عني صوبونا فيها قوم بحي صوبونا عبالنا كل بحي صوبونا عملوغا حالنا تحي صوما اوغا دحلوا وإلى تحي صوما اوغا إسابينو كليا صوما اوغا عملوغا حالنا تحي صوما اوغا دحلوا وإلى تحي صوما اوغا إسابينو كليا صوما اوغا سماجا أرلديغو يربكا بردكرو أطول ياري ويشدن كويدو